السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي igu xiran dhamaantiin waan idin salaamayaa meel walba oo joogtaan iyo goor walba idin tahay. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso aad iyo aad u cajiib badan. qisadaasi haddii aad dhageysato oo aad dhammaysatana aad dareemi doonto haddii aad tahay ruux qalbi leh ama ruux hore wax u soo jeclaaday. qisadani waxa ay dhexmari doontaa waa gabar markeedii hore indho laheyd kadibna indho yeelatay. ninkii ama wiilkii jeclaadna indho ayuu lahaa, laakiin kadib ayuu indhool noqday. haddaba sheekadani sidee ku dhacday, arrintani sidee wax u jiraan ama sidee u dhaceen, wax waliba aniga ayaa idinla wadaagi doono. qisooyinka aan idiin soo gudbina ma aha kuwo aan iska soo mana awaalanay ama qisooyin aan been ka sheegeeno. wax waliba salka iyo raadka ayaan ka soo raadinaa, sida ay u dhaceen ayaana idinla soo wadaagnaa. qiso jecel oo cajiib ah. nin baa aad gabar u jeclaa. jaceylka oo uu jeclaa ma uusan lahayn xad. waxay kalsoonida iyo isfahanka uu ka helay ayaa ahayd mid ka duwan kuwa ay wadaagaan noolo badan oo maanta dunida ku nool. farxad ayay ku wada noolaayeen, dadka oo dhanna aad ayay ugu farxi jireen sida wacan ee noloshooda u hanqaaday. mar waliba waxa ay ku ducaysan jirtay in ilaahay gargaar u soo diro si ay maalin u aragto qofka sidan oo dhan u daryeelay, tusayna in nolosheeda waxba uusan ka dhinnayn, iyadoo ilaahay ka qaaday laxaadkii ugu qaalisanaa qof walba oo bila'aadana. kaasi waa indhaheedii oo gabadhu waa indhala'aan. mar walba waxay odhan jirtay, qaali goormeen ku arkayaa? wuxuu ku odhan jiray, haddaba qalbiga ayaad iga aragtaa. wuxuuna u ballanqaaday inuu geyn doono dhakhtarka ugu wacan sidii gabadhani indhaheeda wax looga qaban lahaa. maalin ayuu gurigii ugu yimid, wuxuuna yidhi, nakeen, dhakhtarka ayaan tegaynaa. laba mid ayay noqonaysaa: in indho laguu geliyo oo aad muddo badan ii arki weydo adoo indho qaba, iyo inaad muddo badan ii aragtid adigoo aan indho lahayn. si ay u fahanto ayay garan weyday gabadhii. markii ay weyddiisana asigaba wuxuu ku yidhi, aniguba ma aqaana, ee ina mari, dhakhtarka ayaan aadaynaaye. dhakhtarkii ayuu geeyey. qaliin kadibna waxaa lagu guulaystay in indho aynan lahayn loo geliyo. nolol cusub iyo arag ay dunidu ku arkayso ayaa hor timid gabadhii. nasiib daro waxay agtayda ka weyday qofkii ay jecleed. doktoorkii ayay weyddiisay, wuxuuna u sheegay ama ugu jawaabay markii uu keenayey ama gabadhani isbitaalka la keenayay inuu keeno wiilkaasna oo kaga tegey warqadduu u qoray. dhakhtarkii ayaa gabadhii u guddoonsiiyey warqaddii una dhiibay. iyadii waxa ay ku bilowday akhris oo wixii ay ka bilaabanaysaa warqadda ama waxaa ku qornaa erayadan soo socda: caliso, waxaan kaaga dheeraaday 3 arrin oo ah in aanan noloshaada daryeeli karin sidii markii hore aan u daryeeli jiray, in aan ahay qof aad u foolxun oo indhahaaga arkay, dunidani quruxda badan ayna hal sikin eegi karin, in aan jaceylkan kuu qabo gaadho, inaad isoo raadiso intaan ku daryeelay in ka badan haddii qalbigaaga boos aan ku leeyahay. markay dhammaysay akhriskii warqadda waxaa indhaheeda ka yimi ama indhaheeda soo dhaafay ilin, waxayna ilintaasi noqotay tii ugu horraysay ee indhaheeda ka yimi. intay dunida joogtay waxa ay samayso ayay garan weyday. kelmaddii uu ku dhahay hadday indho hesho inay weynayso. nolosheedii waxay gashay murugo. wax way aragtaa, laakiin aragtidii qalbigeeda ayaa daciifay. waxay ku dadaashay meelo badan uu geen jiray inay joogsato ama ay tagto si ay xasuus ugu noolaato. badanaa waxay aadi jirtay beer aad u qurux badan oo lagu nasan jiray. in badanaa ay ku wada sheekaysan jireen. wakhtigu wuxuu ahaa mid socda. mar waliba oo ay gabadhu timaado meesha waxay arki jirtay nin indhoolaa oo wiil yar mar walba gacanta uu ka hayo ama uu hoggaaminayo. sannad meelaha markii ay ka soo wareegatay ayay maalin wiilkii yaraa ninka indhoolaha wadi jiray ku tiri, walaalo, maxaa kugu dhacay? 1 sano halkaana ayaan kugu arkayaa ninka indhoolaha adiga oo wada ama adiga oo hoggaaminaye. wiilkii yaraa ayaa ku dhahay, markuu indhaha qabay ama markuu indhaha la'aa qofuu jeclaa ayuu halkaani ka raadinayaa. gabadhii oo hadalka la yaaban
ayaa tidhi aniguba markaan indhaha la'aa ama markaan indhoolaha ahaa ninkii jeclaa ayaan halkaani ka raadinayaa. kadib intay ka dhaqaaqday wiilkii yaraa ayay xaggii ninkii aaday kuna tidhi 1 sano ayaan kugu arkayaa halkaani, noloshaaduna waxa ay matashaa ama ay u eg tahay ama ay shabbahdaa noloshayda. marka anoo indhala qof aan jeclaa ayaan raadinayaa halkan aan ku kulmi jirnay, adiguba adoo indho qaba qofkaad jecleed ayaa raadinaysaa sida wiilka yar uu ii sheegay. laakiin adiga iga nasiib wacan, waayo waad aragtay jeceylkaagii. taa markay tidhi ayuu hadlay oo ku dhahay kan ku jecel waa aniga, kan aad sugaysidne waa aniga, kaad soo raadisayna waa aniga. isaga hadalkii uu dhammaynin markay codkiisa maqashay ayay suuxday. dadkii ayaa ku soo cararay ama ku soo yoomay. dhakhtarka ayaa loo qaaday, isaguna qisadii ayuu dadkii uga sheekeeyey. kadib cisbitaalkii ayaa loogu geeyey indhaha markay kala furtay. waxaa keliya ay aragtay waxay ahaayeen ninkii ay jecleed. ilin ayaa indhaheedii ka timid, ilintaa oo noqotay mid farxad ay ku dheehan tahay ama mid farxad ay ka keentay. dhegayste, haddaba adiga ayaan ku weydiinayaaye, jeceyl sidaasi noloshaada ma soo aragtay ama jeceyl sidan oo kale ah ma soo maray noloshaadii? haddii ay jawaabtaada haa tahay, nolala soo wadaag ama nagula soo wadaag qaybta hoose ee communitiga fideogaani. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinana waxaan idin leeyahay maalinimo wanaagsan. kullu caam wa antum bilkhayr. waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan. ciiddii ayaa soo dhow insha allah. meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay marxaba bikum yaa muslimiin kulligiina ciid mubaarak. ilaahay hayna gaarsiiyo ciidan ciiddeeda kale, ilaahay hana ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. waxaan idinkaga tegayaa waa baraadarkiina oo idinle salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.